idiin soo gudbinayaa sheeko cajiib ah adiga oo gabar ah dhul cidla haddii lagaaga tago oo qof dhalinyaro ah uu joogo habeenkuna uu mugdi yahay haddana qofkaas uu ku siiyo meel aad seexato haddana aadan ogeyn waxaa kala soo kulmayso haddana qofkaas uu kuu tixgeliyo sidii aad rajaynaysay iyo si ka qurux badan waxaan idiin soo gudbi doonaa sheekadaas oo aad u xiiso badan maalin maalmaha ka mid ah koox dhalinyaro ah oo arday ah iyo macallimiintooda ayaa waxay u baxeen safar kadib waxay aadeen halkii waxbarashada ay ka soo baranayeen markii ay tageen meeshii waxbarashada ay ka soo baranayeen waxa ay tageen meel cidlo ah oo qofna aanan joogin halkaas ayaa cashiradii iyo waxoodii hadafkoodii ay lahaayeen ayay ku ceshteen markii ay dhammaysteen akhrintii cashiradooda mid ka mida gabdhihii ayaa ka tagtay si ay meelaha u soo marto gabadhii inta ay maqneed waxaa imaaday baskii macallimiinta iyo ardayda ay saarnaayeen kadib ardaydii iyo macallimiintoodii waa ay soo baxeen baska ayay soo raaceen ayagoo uu haystay in gabadhii ay saaran tahay baska waa ay soo baxeen in muddaa markii ay soo socdeen ayay waxay ogaadeen gabadhii inay maqan tahay gabadhii waxaa imaaday halkii ay ku ogeed ardaydii iyo macallimiintii aad ayay u cidlootay qalbigeeda waxaa soo galay cabsi fara badan sababtoo ah meesha ay joogto cidna ma degno waa tuulo oo guryo uma dhowo tuuladooyinka ama magaalooyinka qaar markaa joogtane masaafo ahaan dadka miyiga ku soo kora ayaa yaqaano markii tuuloba tuulo ay kuu dhiibayso guryo ahaan way kala fog yihiin gabadhi waa ay isdhiirigelisay waa ay soo baxday in muddaa markii gabadhi ay socotay waddadu waa cidlo waa ay cabsanaysaa bahallada iyo waxaa is leedahay qofkii kaa soo horbaxo adiga amuu ku xoogaa sidaas oo ay tahay gabadhii muddo markay soo socotay waxay aragtay guri meel ka dhisan gurigii ayay gargaraacday kadib waxaa ka soo baxay wiil dhalinyaro ah markaas ayay dhahday miigu caawi kartaa tuulada ugu dhow ee meeshaan ka dhow ama ma ii gee kartaa markaas ayuu dhahay wiilkii kuma gee karo tuulada mana dhowo waa wakhti dambe caawa halkan iska seexo berri ayaan ku geenayaa gabadhii aad ayay u naxday ayada oo jaraynayso ilintuna waa labo midna waa qalbiga midna caadi ayuu qofku dareemaa markii gabadha guriga soo gashay waxay aragtay qol diyaarsan loo firaashay habeenkii markii la gaaray gabadhii waxaa u soo baxday ama waxaa ayada oo dhan araggeedii uu isku beddelay murugo joogto ah markaas ayay isdhahday meeshaan qofna kama dhowo gurina kama dhowo ninkan caawa wax walba ayuu kugu samayn karaa laakiin wiilku waxaas uma caddo oo waxaa u cad asxaanka iyo gabadhan cidlada ah oo haddana dadkii la socday ka tageen sida uu xaalkeedu yahay habeenkii markii la gaaray shumac ayuu u daaray gabadhi waxay iska ilaalinaysaa dhaqdhaqaaqa ninka mar walba waxay isdhehaysaa xaggaada ayuu soo aadi doonaa laakiin sheekada nuxurka ku jira ayaa waxay tahay ninka in farihiisaba ay gubteen shumaca mar walba uu damo farihiisa ayay noqotay markii dambe in uu ku daaro shumacii asagoo intaas iska ilaalinayay mas-uuliyadda gabadha iyo sida quruxda badan ee u aamintay gabadhaas mar walba sheedaanka qalbigiisa wuxuu u sawirayay in gabadhan uu ku sameeyo ficil xun ama uu ku xadgudbo waxaa la gaaray subaxii gabadhii waa uu soo waday tuuladii ayuuna keenay markaas kadib ayay wiilka farihiisii ayay fiirisay gabadhii markaas ayay aragtay farihiisii oo guban markaas ayay ku dhahday maxaa sidaanoo dhan u samaysay markaas ayuu ku dhahay mar walba oo sheedaanka uu dhaho ficil xun ku sameey sidaan ayaa nafteeda ku samaynayay gabadhii waa ay soo baxday arrinkii aabbaheed ayay ugu sheekaysay aabbihii arrinkii markii loo sheegay
aad ayuu ugu naxay. Markaas ayuu dhahay, tani macquul maahan, waa shaydaan, waa inaan soo raadiyaa sida waxaani u dhaceen. Markii aabbihii uu soo baxay tuuladii ayuu imaaday. Kadib waa uu wareystay wiilkii, waxauna u sheegay hadda ka hor inuu gabar u soo martisay, sidaasna uu sameeyey. mar walba oo shaydaanka wax xun samee uu dhahane oo ficil ahaan u sameynayay jirkiisa ama farihiisa in uu gubo si markaas uu isku dareensiiyo in uusan waxaasoo idil u baahneen. wiilkan sheekada iyo nuxurka ee leedahay ayaa waxay tahay hal habeen oo xaaraan iska badbaadiyey ayuu wuxuu ku helay xalaal qurux badan. aabbihii waxa uu go'aansaday in gabadhiisa uu u guuriyo wiilkaas had waxay tahay noloshiisii mid aad u sareyso. sheekada nuxurka iyo qiimaha ay leedahay ayaana waxay tahay weligaa qofna xumaan ha u geysan adiga oo xalaal heli karo. waxaa sheekadan qoray Ustaad Macow ayaa qalinka u qaatay. waxaa idiin soo gudbinayay anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. waxaa ka daawanayseen barta YouTube-kan ku leeyahay Socdaal 24 iyo bartayda TikTok-ga Socdaal 24. adiga daawanaya sheekooyin noocan oo kala haday aad haysid waa noo soo gudbi kartaa si aan ugu soo gudbino saaxiibada nagu xiran. sheekooyinka mar walba aan soo gudbino waxay yihiin kuwa aan isleenahay saaxiibada ku xiran aaladaha aan ka isticmaalno baraha bulshada waxay u noqon karaan kuwa wax badan aan ka faa'iidno. ilaa iyo muuqaalka haddii dhammaadkiisa nala joogtay waad ku mahadsantahay daawashadaada iyo waqtigaada quruxda badan aadna siisay. tani iyo sheeko kale intaa ku kulmi doono nabadgelyo.